xaaladda siyaasadeed ee cakiran ee xilligan dalka uu ku jiro waxay dad badan aaminsan yihiin in haddii aanan si saxa looga jawaabin oo madaxda dalka ugu sarraysa aanay ku bixin ay ka dhalan karto mid saamaynba aan ku yeelato shacabka iyo guud ahaan hannaanka dowladnimo ee muddo raadraadinta loogu jiray sidii dhidabada loogu aasi lahaa. Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo ah guddoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed ayaa sheegay in ka culimo ahaan ay dareemayaan culayska ay leedahay arrintani, waxaana uu tilmaamay in madaxweynaha Soomaaliya iyo guud ahaan inta kale ay qusayso looga baahan yahay in arrintani ay xal degdeg ah ka gaaraan, maadaama uu yiri ay munaasab tahay in dalka aan loo horseedin burbur iyo sidoo kale dagaal sokeeye. marka waxaan soo jeedin lahaa in balbarlamaanka iyo mas'uuliyiinta kale iyo hay'adaha kaleba laga fakaro sidii shacabka loo horsiin lahaa fursad ay maaragtay u korjoogteeyaan waxa dhacaya iyo waxa socda si marka ayaga lafta mowqifkooda u cadaado. وإلا هذا واحد مسؤولينتي أو نبص واحد لايو ونبى قلب دليشان هايو أيه رد كسور استاج هاي مقسم ده لو قبحه محايا لي أمضى أقويها كده برلمانك كلي أماها حكومة ده كلي أماها طب بدنا بأشياء رنتي مركز الشعب كله جاي يمد وأما برلمان صوت دورتي أما حكومة ده أنا برلمانك ودورتي وحصلنا إحنا قطبة شعب كانوا عصا ورنتي ما أنت موقف كسلوب بهني هاي waxa mowqifkiisa la heli lahaa markii xogta dhabta ah shacabka asagu uu hayo oo asagu uu la socday dhacdooyinka uu goobjoog u ka ahaa. laakiin hadda waxa weey mid lafteeda nooc wareer ah intii bay keenaysaa. marka ala kulli hal mas'uuliyiinta in ayagu maaragtay isxaq dhowraan in waxay qorteen ay ku wada socdaan in ummadda loo turo baan runtii soo jeedinay dawladna ayada ayaan runtii aan maaragtay aan taageersanahay in aan hay'adda dastuuriga la ilaaliyo ayaa ka muhiimsan in ashxaas la nacbaysto ama la jeclaysto ama la ilaaliyo. Batuulo Sheekh Axmed Gaballe oo ah guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed oo iyaduna nala hadashay waxa ay muujisay dareenkeeda ku aadan arrintani. waxay sheegtay ka haween ahaan in ay baaritaan qoto dheer ku sameeyeen khilaafaadyadii waddanka ka dhici jiray ee u dhaxeeyay madaxda dalka, waxaana ay tilmaamtay in marnaba aanay jirin khilaaf soo kala dhaxgalay madaxda ugu sareysa dalka oo inta xal laga gaaray haddana mas'uuliyiintu ay wada shaqeeyeen. waxaase ay ku talinaysaa in arrintan la xiriirta mooshinka ee guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari laga keenay lagu dhameeyo wada hadal iyo isfaham iyadoo loo turayo dalka. hase yeeshee haddana aad arkayso si kastaba arrintu ha noqotee in la kala wanaagsanaado oo tanasulaad yimaado oo danta iyo shacbiga Soomaaliyeed loo turo oo hooyooyinka loo turo oo ubadka loo turo oo qarannimada loo turo waa wax loo baahan yahay. hadday taasi dhici weydayna waxa loo baahan yahay in dawladnimadii iyo sharcigii iyo dastuurkii aan u dhiganay inaan ku dhaqanno, waayo sharcigu waa wax loo siman yahay, waa wax aan cid gaar ah loo soo saarin, waa wax loogu talagalay ummadda Soomaaliyeed ama ha noqoto baarlamaankeeda ama ha noqoto xukuumadeeda ama ha noqoto garsoorkeeda inay ku maaragtay dhaqanto oo iyadu ay dhigatay. saadaradeed in sharciga sida uu yahay loogu kala baxo. bulshada rayidka ku dhowdo waxay qabaan aragtiyo kala duwan. waxaan la hadalnay qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho oo cabiraya dareenkooda ku aadan hadda inta maalmood la siyaasad dib u dhac badan ay yimid inta soo qaraxa dhacday dad baa dhintay dad baa shaqo ma haysan oo shaqooyinkii oo dhan wax nabayeen meel walba wax karantay meel walba waxa leeyahay mooshin aan socday biri mooshin wax dan ah kuma jiraan dhaqaale baabis waaye waa dib u dhac waa dal baabis iyo maalinta biri baarlamaanka furmaayo horta waa arrin shacabka ay samarna filayeen maadaama dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee dawladda ugu taageeraha badan bulshada Soomaaliyeed khaasatan shacabka Soomaaliyeed waxay niyad ku hayeen in higsiga iyo ballanqaadyadii uu sameeyay oo hagaagi doonaan asiirayso wasaare khayr. maalinta beritaa ayaa lagu balansan yahay xarunta golaha shacabka in loo cod qaado mooshinka ka dhanka ah Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, waxaana Jawaari oo shir jaraa'id qabtay uu ku sheegay in arrintaasi ay tahay mid aan waafaqsanayn sharciga. Munaasir Maxamed Cabdi, Universal TV, Muqdisho.